kumanaan qof ayaa ka soo qayb galay xafladda aqoonsiga xeerka Soomaaliyeed ee beesha Ciise oo halku dhag looga dhigay xeer Ciise waxa uu gundhig u yahay sinaanta cadaaladda iyo midnimada beesha. Xafladani ayaana ka qabsoontay garoonka weyn ee kubadda cagta ee Diridhabe. Munaasabadani waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka xisbiga barwaaqe ee dalka mudane aadan faarax ibraahim, madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane mustafa maxamed cumar, mas'uuliyiin ka socota dowladda federaalka Itoobiya, dowladaha Jabuuti iyo Soomaaliya, marti sharaf iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ismaamulka Diridhabe. Waxaan ballan qaadayaa in dowladda Itoobiya iyo xisbiga barwaaqo ay ilaalin doonaan dhaqamada noocan ah ee lagu daray diiwaanka dhaqamada adduunka ee UNESCO aqoonsatay, ayuu yiri mudane aadan faarax oo munaasabadani ka hadlay. waxaana sharaf weyn ah inaan maanta idinkala soo qayb galo xafladan taariikhiga ah ee lagu maamuusayo aqoonsiga UNESCO siisa xeerka oo ah dhaxal qiimo badan oo inooga tageen jeelashii naga horreeyay. mahad iyo abaal baan u haynaa aabbayaashii xeerka inoo xafiday oo ilaaliyey dhaxalkaas qiimaha leh. waxaana ugu mahad celinayaa hay'adda UNESCO sida ay u qadarisay qiimaha uu xeerkan ugu fadhiyo bulshada geeska Afrika iyo caalamkaba. sidoo kale waxaan mahadnaq ballaaran u soo jeedinayaa cid kasta oo kaalin ku lahayd suurtagelinta diiwaangelinta rasmiga ah oo ugu horeeyo ogaaska sharafta ogaas mustafa maxamed ibraahim, hay'adda City Heritage iyo aqoonyahanada doorka ku lahaa. xeerka Ciise waa astaan muujinaysa aqoonta, indheergaradnimada iyo ka go'naanshaha aabbayaasheen iyo awoowayaasheen ee dhinaca nabadda, cadaaladda iyo wadajirka bulshada. xeerkan waxa uu diiradda saarayaa isku xidhka bulshada, ilaalinta xuquuqda iyo xallinta khilaafaadka iyadoo la adeegsanayo wada tashi iyo go'aan qaadasho cadaalada. waa xeer ku dhisan ka shaqaynta maslaxadda guud iyadoo la ilaalinayo danaha iyo xuquuqda qof walba. xeerku waa mid suurtageliya in hab nabadeed xal waara loogu helo muranada iyo kala duwanaanshaha iyadoo aan la adeegsanin qas iyo fawdo. waa xeer jiilba jiilka kale isdhaxalsiinayeen oo shacabkeenna ka badbaadiyey dhibaatooyin fara badan. munaasabadan sida heerka sare loo soo agaasimay laguna qabtay magaalada Diridhabe oo ah xarun taariikhi ah oo tusaale u ah midnimada iyo wada noolaanshaha shucuubta Itoobiya waxay maray cad u tahay ixtiraamka ay bulshadeennu u hayso dhaqankooda iyo taariikhdooda. UNESCO waxay u aqoonsatay xeerkan inuu yahay dhaxal aan ku koobnayn beesha Ciise, balse uu yahay hanti caalami ah oo ay dunidu wax ka baran karto, isla markaana mudan in la xafido si bulshada caalamku sida ugu habboon uga faa'iideysan karto. aqoonsiga UNESCO siisay xeerka Ciise wuxuu kor u qaadayaa sumcadda geeska Afrika oo ka kooban wadamo hodan ku ah dhaqamada iyo hiddaha kala duwan. sidoo kale aqoonsigan caalamiga ah waa mid na xasuusinaya in dhaqankeenu yahay hantida ugu qaalisan ee aan adduunka ku leenahay. wuxuuna inagu dhiirigelinayaa inaynu si hagar la'aan uga shaqayno barashadiisa, ilaalintiisa iyo xoojintiisaba. marweyn iyo mudanayaal, Itoobiya waxay hadda ka hor UNESCO uga diiwaangelisay sugeyn 17 dhaxal oo isugu jira dhaxal dhaqameed, dhaxal dabiici ah iyo dhaxalka aan muuqan. diiwaangelinta xeerka Ciise oo iska kaashadeen Itoobiya, Jabuuti iyo Soomaaliya wuxuu tusaale fiican u yahay faa'iidada iskaashiga saddexda dal ee wadaaga xidhiidhka xooggan ee dhinacyada badan leh iyo sida ay mustaqbalka uga faa'iideysan karaan hiddo dhaqameedka ay wadaagaan si ay uga midho dhaliyaan danaha guud ee lagu kobcinayo xidhiidhka bulshada, isla markaana kor loogu qaadayo horumarka bulsho dhaqaale ee geeska Afrika. diiwaangelinta xeer Ciise ee UNESCO wuxuu dowladaha Itoobiya, Jabuuti iyo Soomaaliya farayaa inay sii ilaaliyaan dhaqankaas oo ay ku baraarugsanaadaan mas'uuliyadda kaga aadan ilaalinta hiddaha iyo dhaqanka qadiimiga ah. saas awgeed waxaan halkan ka ballan qaadayaa in xisbiga barwaaqo iyo dowladda Itoobiya ka shaqayn doonaan sidii dhaqamada noocan ah ee caalamiga loo ilaalin lahaa, loogana faa'iideysan lahaa si adkeynta midnimada dalka. sidoo kale waxaan halkan ka caddaynayaa in Itoobiya ka go'an tahay xoojinta xidhiidhka dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda, nabadda iyo dhaqanka ee dalalka geeska Afrika iyo adkeynta isku xidhnaanta bulshooyinka ku dhaqan si loo gaaro himilada ah in la abuuro gobol nabdoon, dhaqaale ahaan barwaaqo ah iyo bulshooyin iskaashanaya kor u qaaday horumarka iyo xasiloonida geeska Afrika.
waxaanan bulshada kula dardaarmayaa inaad gudataan mas-uuliyadda culus ee idinkaga saaran si ilaalinta iyo sii xoojinta xeerka si jiilka dambe ay uga faa'iidaystaan. waxaan sidoo kale ugu baaqayaa bulshooyinka kale ee ku nool geeska Afrika inay wax ka bartaan aqoonsigan caalamiga ah ee la siiyay xeerka ciise oo ay ka shaqeeyaan nidaaminta xeerarka noocan oo kale ah si looga faa'iidaysto isku xidhka bulshada, ilaalinta xuquuqda iyo xallinta khilaafaadka. sidoo kale waxaan odayaasha iyo aqoon-yahanka ku boorinayaa inay noqdaan iftiin u horseeda bulshada sidii ay u ilaalin lahayd qiimaha iyo aragtida xeerka ciise, u sharaxaan muhiimadda xeerka, qiyamka uu ku dhisan yahay iyo sida waxtarka uu ugu leeyahay nolosha casriga. gaar ahaan aqoon-yahanka waxaa looga baahan yahay inay noqdaan kuwo isku xidha dhaqanka iyo horumarka, iyagoo ilaalinaya isku dheelitirka u dhaxeeya taariikhda, xaaladda maanta taagan iyo mustaqbalka. ugu dambayn waxaan ugu baaqayaa dhammaan bulshada iyo maamuladaba inay ka faa'iidaystaan munaasabadan la isugu yimid si loo xoojiyo isku xidhnaanta nabadda iyo horumarka geeska Afrika. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.